nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay saddex qofood inaysan weligooda janno gali doonin waa saddex qofood oo muslimiinta ka mid ah weeye oo dembi kala nooc sameeyay saddexdan qofood ee janno weligooda aysan galin oo nabigu uu sheegay sallallahu alayhi wasallam midka koowaad wuxuu yahay waa haweeneyda oo rag isku ekeysisay weey waa qof dumar ah ilaahay wuxuu ka dhigay dumar ayuu ka dhigay markuu uumaay dumarnimadeeda kuma qanacsan rag isku ekeysisa xagga hadalkeeda si rag ay u hadashaa labiska ay labisatayna waxay u labisataa sidii rag socodka ay socoto waxay u socotaa sidii rag waxay isku ekeysisa isku shabahdaa rag isku ekeysisa taas oo kale nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri weligeeda janno gali mayso nabi sallallahu alayhi wasallam haweeneyda rag isku ekeysiiso ilaahay wuxuu ka dhigay qof dumar ah ilaahay wuxuu ka dhigay qof qiimo badan qof sharaf badan inaad rag isku ekeysiiso ma ahan waa inaad ku qanacdaa dumarnimadaada sidoo kale nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ilaahay ha lacnado qofka dumarka ah oo isku ekeysiisa rag isku ekeysiisa ilaahay ha lacnado lacnad ayaa ku socota qofkaas oo kale